saddex noloshaada ka saar wixii tagay kasa walba kugu dhacday si walba u xanuun badneed marba haddii ay tagtay way tagtay Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii tagay tigsmad mal way kugu dhaceen ha u ogolaan in noloshaada dambe ay saameeyaan ha u ogolaan qodobka labaad waxa waaye ha u ogolaan in noloshaada saameeyaan dadka hadallada qaldan isticmaalo dadka macnaha negative ka isticmaalo oo hadallada taban oo mar walba ku hanjibinay ha u ogolaan sidoo kale nafsadaadan ha u isticmaalin hadallo qaldan iyo hadallo taban ha u isticmaalin qof walba markaan la hadlayna ama la dhaqmeeno waxa koowaad aan ka fakarno waxa waaye in qofkan hadalkiisa aan dhahno qofkan hadalka ka wanaagsan ayaa u doornaa Soomaali dadka kale marka la hadlayna nafsadeena xaq waxay noo leedahay in aan u doorno hadallada wanaagsan marka nafsadaadana hadal xun ha dhihin dadka kalena oo hadallada xun dhahayaan oo ku hanjibinayaan ha u ogolaan goortay warkaas ay sameynayaan in waxa waaye ay saameyso maskaxdaada iyo noloshaada midka ugu dambeeyna waxay tahay ha u ogolaan in noloshaada ay saameeyaan dadka sheegashada badan adigana ha noqonin dadka sheegashada badan oo wax walba qof u sameeyay hebel wax u sameeyay dhahay ha noqon goorta ayaga waxaas ay sameynayaan aysan ku saameynin salaam alaykum waxaan kugu soo dhaweynaynaa sheer xirfad oo ah hoyga barashada xirfadaha casriga sheer xirfad qaybta caafimaadka waxaan kugu diyaariyay koorsooyinka caafimaadka ee aasaasiga sida maternal skills course marxaladaha hooyada caafimaadkeeda lagu socon karo koorsada nafaqada nutritionka jirkeena nafaqooyinka u baahan yahay ku baranayno waxa kale oo kugu diyaariyay emergency care qof hadduu xaalad degdeg ah galo sida uu caawin lahayn iyo barashada daawada pharmacology linkiga hoose ayaa idin soo dhigayaa koorsooyinka